waxaan eegi doonaa markaa qorshe fudud oo isku dheeli tiran oo balance strategy ah oo aad waxna ku iibsan karto iskagana iibin karto marka xaaladda suuqa marka lagu jirana iska iibsan karto xaaladda marka lagu jirana iska iibin karto marka istiraatiijiyada waa muhiim inaad isticmaasho tusaale goormaan iibsanaya intee ka iibsanaya way su'aashu ila xaalado kala duwan buu suuq ku jiraa xaalad kasta maxaa ka iibsanaya iibsashada marka buying strategy marka aad wax iibsanayso istiraatiijiyada isticmaal ka mid ah kow 40% iibso markuu qiimuhu aad u jabo suuqa markii biil market lagu jiro aad loo soo daadiyo oo kuntaada hawada gelin lacagtaada hawada gelin 40% lacagtaada haysato geli $100 baa kirtada ugu soo gashay ayaa 40% intay ka noqoto geli marka tusaalahan $40 geli $50 geli intay aad ugu tala gashay geli marka hal mar suuqa hawada gelin tartiib baa loo galaa suuqa markuu aad u soo daato soo in la maal gashada ma aha hadii waxa ugu dhan hawada gelin wax laga yaabaa suuqu inuu hoos u daato dhici karta marka joog markuu hoos u daato 40% lacagtaada geli 40% inta ay ka tahay geli tusaalahan $100 baa haysata $40 geli $60 baakin dhigo 40% marka suuq aad soo daataa la gashadaa 30% iibso markuu suuqu xasiloon yahay coinsku ay degan yihiin dhaqaaq uu sajirin hoos dhac uu sajirin lacagtaada haysato 30% geli hawada gelin iyo 30% xaaladda gasho iibso markuu qiimuhu bilow u kacayo markuu suuqu u kacayo tusaale ahaan bitcoin baa dhaqaaqday altcoins waxa la filay inay dhaqaaqaan markaas ay soo dhaqaaqayaan markaas oo kalena soo raacayadana 30% geli marka lacagtaad maxay noqotay 100% maxaad u qaybisay 40% waxaad gelisaa markuu suuqu hoos soo daato uu low u noqdo xaaladda 40% soo gasho xaaladda suuqu markuu xasiloon yahayna 30% gasho xaaladda suuqu uu dhaqaaq samaynayo bull market aan la gaarin bear market kana laga soo baxay lowgi suuqu ka soo dhaqaaqay korna uu sagaarin oo meel dhex uu joogana 30% gasho ee waxa gashata wax la yiraahdo 30% gasho marka istiraatiijiyada waa istiraatiijiyada aad ku iibsan karto iskana ilaali mar walba waxa la maal gashadaa coinska waaweyn ee mashruucyada waaweyn leh 10 coin ugu horeeya crypto ayaa mar walba la maal gashadaa sababta lacagta ugu badan iyada gasha iyaga dhaqaaqa ugu badan sameeya iyaga faa'iido ugu badan laga sameeyaa iibin marka sell strategy markaad iibsanayso marka iska iibinayso istiraatiijiyada isticmaalaysa maxay tahay iyadana istiraatiijiyadan isticmaal 25% iibi marka uu sameeyo 30% faa'iido ah 30% in ka badan faa'iido ah markuu coin ku sameeyo 25% coin intaad ka haysatay iska iibi tusaale coinka waxaad ka haysatay 100 xabo coinka uu dhaqaaqay faa'iido 30% buu sameeyay 100 xabo waxaad ka iibisaa 25 xabo iska iibi oo faa'iidada ah qayb ka noqo 25% iska iibi coinka intaad haysatay waa markuu dhaqaaq sameeyo 30% coinka markaad faa'iido 25% baa la iibiyaa hal mar hay wada iibin sababta wax laga yaabaa coinka intaad iskaga iibisay in ka badan in qiimihiisu uu kor u kaco hadda maxaad u reebataa haddaad hal mar wada iibiso marka coinka hal mar hay wada iibin qayb u iibi 25% iibi markuu 30% faa'iido uu ku sameeyo 25% kalena iibi marka uu gaaro 50% oo faa'iido ah 50 plus tusaalahan coinka 100% buu kor u kacay coin baa wuxuu Solana kor waxay ahayd 120 240 buu noqday kota kamida iibi sababta 100% buu kor u kacay maana waxa ka wadnaa 100% waxaad iibisaa 5 iska iibi markuu coinku 100% faa'iido uu sameeyo 100% markuu sameeyo faa'iido 25% iska iibi hadda coinkii 25 waxaad soo iibisay markuu 100% faa'iido ku sameeyay 25 waxa iska iibisay markuu 50% faa'iido uu sameeyay kotakas ku soo haray markii aad gaarto targetkaaga ama target profitkii aad lahayd marka aad gaarto 50% iska iibi tusaale hadafkaagu wuxuu ahaa Solana waxaad ka soo raacday 120 baad ka soo raacday hadafkaagu wuxuu ahaa 290 all high macnaha all the time high marka ay gaadho inaad iska iibiso 290 marka all the time high hadii ku gaaro 290 kii uu gaaro ama 300 uu gaaro 50% ku soo harana miiska saarayadana lacagtaadi marka faa'iidada haysaa faa'iidadaadina waad ka taxadirtay waxa laga yaabaa 50% ugu horeeyay markaad iibiso suuqu inuu soo daato khasaare ku jira marka adiga may hoos baad ka sugaysaa 50% faa'iido aan meel bay ku taalaa 50% coinskana waad haysataa hadhowna 50% aad hore faa'iido uga samaysay marka faa'iidada la baxdo la fihi baad hoos ka soo raacaysaa hadana kor marka yimaadana faa'iido ka helaysaa marka istiraatiijiyada iyadana isticmaal marka qorshaha ugu fiican ugu dheelitiran waxa weeye inaad markaad iibsanaysana istiraatiijiyada boqolleyda aad isticmaasho markaad iibinaysana istiraatiijiyada boqolleyda inaad ku iibiso sida isticmaal mar walbana ardayo waxa samaysaa
mar walbana cilmi baaris samee research samee waxa weeye mar haddaad lacagaha crypto soo guda gashay oo aad fahanto ma waxa lagaa rabaa learning joogto ah inaad wax badan barato youtubeska aad la socoto wararka suuqa aad la socoto exta ama bartale twitterka aad la socoto macluumaadka update inaad haataa lagaa rabaa inaad iska dhaga xira inaad noqoto lama rabo sidaas samee insha allah marka halkaana waxaynu ka fahanay waa goorma waqtiga saxda ah ee cryptocurrency-ga ama la maalgashado ama haddii aad ku jirto coinska aad haysatay la iska iibiyo xilliga coinka la iska iibiyo xilliga la soo iibsado halka waxaan rajaynaynaa arday walba inuu fahmay ardaygu ku celceli mar walba wixii aad garan weydo ama aad fahmi weydo whatsappka telegramka yaala ama whatsappka waxa weeye akademiyadu ay leedahay nagala soo xiriir wixii su'aalan halkan naga weydii aad aad ba mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh